اوكي. ها أرد مرة ورس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنت مسلمين تا الصوماليات يكون جرتا بيج كيجن أنت تقانا أنت أقوم بوحان تقول سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. run ahaantii social mediaha waa in la isku fahansiiyaa waxa wanaagsan la iskuna faraa waxa wanaagsan la iskana qabtaa waxa xun. maanta waxaan u soo galay waxaan joogay governmentka meel xafiis ah marka insha Allah waxaan indheeyay oo aan arkay dacwad in aweyd socotay hooyooyin Soomaaliyeed oo isdilay waraaqahoodii iyo waxoodii baan arkay dacwadda mudday socotay qarash aad iyo aad u badan baa ku baxay oo labada dhinacba lacag aad u badan oo aan ka go'i karin duruuf ahaan runta marka la sheego kamayna niman dad taajiriin waxaanu ka nimid dad cayd ah lacag aad u badan oo run ahaantii ay ahayd inay sadaqadaystaan ayaa labada dhinacba ka baxday. anigu barnaamijka waxaan u soo galay waa talo ku socota dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan gaar ahaan khaas ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed. Soomaaliyeed horta Arab iyo labadii daan ayaa isku dhow oo dadku isqabtaa waa la isdilaa laakiin dad islaam ay nahay waa laga heshin karaa wax walba. arintan hooyooyinkan Soomaaliyeed muddo hadda laga joogo ilaa ay sanad miyaa dhowr bilood ay wax isku dhex dileen aroos ka dhacay gobolka Minnesota. okay isaga aroos ka dhacay gobolka Minnesota ayay isku dileen. thank you. aroos ka dhacay gobolka Minnesota dhexdiisa ayay isku dileen. ka bacdi adigu arooskii hooyo ayaa sheegatay in wax la yeelay oo la isku tagay. okay arintii waxay gashay dacwad. saaga waxaan arkay kiiskii oo la soo gabagabay waraaqii baan arkay oo fiiriyay si fiican ugu fariistay. waxaan arkay kiiskii oo la soo gabagabay. okay muddo ayay socotay. hooyadii la dilay dacwad bay samaysay. qareenay qabsatay. qareenadii markii ay qabsatay qoladii kale ee dilka lagu soo eedeeyay dacwad qareenay qabsadeen. labada dhinacba waa la isku riday waa la isku baabaa. lacag aad u fara badan oo aan madaxiinu galayn ayaa baxday. war waxaynu nahay dad islaam ah, war waxaynu nahay dad Soomaaliya. ma waxaa la waayay dad hooyooyinkaas intay kaxayaan intaasoo qarash ayna bixin kaxeeya oo isku geeya masaajidada iyo culimada. ta kale aan idin sheegay aan raba inaan ku baraarujiyo hooyooyinkaas Soomaaliyeed waxa weeyaan wadankan sharci baa ka jira. sharcigaas ka jira qof ka baawaroon ama qof intuu ku yimaado ku yiraahdo hebel baan ku sameeynaya ee aniga sharciga aqaan anaa kan lacag si oo shilma siiso ha sameeynina hana yeelin. arintii horta yaan idin soo sheekay dhaafin lacag aad u fara badan baa labada dhinacba qareena lagu qabsaday oo baxay. lacagtii qareenadii markii lagu qabsaday dacwadii ay soo jiitantay kiiskii waxa laga dismiss. alxamdulillaah rabbil caalamiin. hooyadii horta wax gaareen ilaahay haddii ay wax gaareen ilaahay caafiyo. labada dhinacana waa idin sheegay dhinacna lama safin laakiin waxaan ka gubtay qarashka intaas leeg ee baxay ee labada dhinacba looyarada isku qabsadeen iyadoo oo wixii la xallin karo lana dhamayn karo. Soomaalinimo lagu dhamayn karo, masaajidka la tagi karo, laga wada hadli karo yaa meesha waxa baxay qarash aad u fara badan oo madaxiina ka weyn. okay see ayay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen Soomaalida khaasatan hooyooyinka. waxaan u sheegayaa fariintan waa muhiim community-ga ku socota gaar ahaan hooyooyinka. waxaa jira rag Soomaaliyeed oo magaaladan jooga oo sheegay in ay yihiin dad community-ga u dooda ama community-ga u carcarara oo yani dad community-ga matala. raggaas waxay haystaan record-ka la yiraahdo felony
waxay haystaan rikoorka la yidhahdo master miner qaar iyaga ka mid ama kulligoodba waxaa rikoorka ugu jira iyagoo lagu qabtay DUI waxa la yidhahdo khamri iyagoo cabsan oo gaari wada okay maxay raggaasi sameeyaan kalmad been idinma sheegay inta daawanaysa ee meesha ku jirta reer Minnesota u badan yihiin laba qof oo Soomaaliya markay isku dhacaan ay iskula tagaan iyagii ayay dumarkii laabta u garaacanayaan qaar ka mid ah raggaas oo oran labadii group bay kala jabinayaan ana sharciga aqaan ana halkan sameynay ana halkan tagay ana kan sameynay ana kan soo xidhay si uu uga qaato hooyooyinkaas lacag u balwad siisto bal fiiriya okay muxuu ku oranayaa wuxuu ku oranayaa aniga waxaan sameynaya qofkan waa soo saaraya qofkan waan xidhaya aqligiina ka shaqaysiya wadankan marka maxkamad la tago haddaad soo kaxaysato Donald Trump ma hadli karo waa had markuu ku soo raaco ku taageersan yahay meel buu fadhiisanaya haddii aad lawyer wadato lawyerkaaga ku hadlaya haddii aadan wadanna adaa isku hadlaya yaanay dhicin mar dambe nimankan wuxuushta ah ee balwadu dilowta ee kookiinka isticmaala kookiin ay isticmaalaan khamri bay cabaan dhaqaale ay haystaan ma jirto waxaan ay wadaan ay isku sii dirayaan hooyooyinka waa khalad hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa yaanay mar dambe dhicin ee gobolka Minnesota degan nimankaasi waa niman macruuf oo la yaqaan waa nimanka halkaas gaarsiiyay arrintan qayb ka mid ah dadka isdacweynayay ayaa lacag ka soo qaateen wallaahi inaan berdin sheegay marxaati dadka reer Minnesota ee meesha ku jira marxaati bay igay lacag bay ka soo qaateen hooyooyinka isdacweynayay waxay ku yiraahdeen kuwan ku dacweynis ana xirayo baabiinaya bal aqligiina qiyaaso hooyooyinkii Soomaaliyeed ee lacagta siiyay nimankaasoo markii aad maxkamadda timaadeen ilaahay baan idinku dhaarshay nimankii lacagta idinka soo qaatay ma hadleen taas question su'aal baan rabaa inaan idin weydiiyo hadleen waa maya I know waan ogahay waana naqaanaa sharciga waana naqaanaa maxkamadda maysan hadleen hadday ugu yaraato $2,000 ayuu hooyada ka cunay ninkaas soo kaxay ee muddada daba carabi ee laha kaalay dacwee oo xidhxid hooyooyinkan kale meel buu fariisanaya laakiin wuxuu ka soo dhaadhiciyay inuu yahay nin dawladda u shaqeeya inuu xidhi karo inuu kan qaban karo wax uu qaban karo ma jirto qofka gobornalka Minnesota mid baan idin sheegaya hooyooyinka Soomaaliyeed yaanay dhicin alkulista dambe ama loser dambe oo inta aad istishaan hooyo adiga oo kala inta istishaan yaanay dhicin loser dambe oo wasakha oo yiraahdo community-gan matalaya intuu lacag idinka soo qaato inuu yiraahdo qofkaas xidhaya baabiinay waa beenti wax uu xidhi karo wax uu qaban karo maxkamadda marka la soo istaago la soo gala ma hadli karo kadaabkeena la yaanay dhicin waxaan kula talinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed war dadku waa bila aadmi waa isqaban karaan war waxaynu leenahay masaajido war waxaynu leenahay culimo war waxaynu leenahay dad diinteena culimadeena magaalada war hadday ka fursan weydo iskula taga masaajidada iskula taga culimadu haydi dhexdhexaadiis dacwad iyo lawyer yaan lagu degdegin arrintan aad baan uga xumaaday waxaan uga xumaaday dhaqaalaha ku baxay ayaan ogaa waxaan saaka arkay waraaqihii arrintaasna waxaa halkaa gaarsiiyey oo fogeeyey waa nimankaa sheeganaya inay community-ga matalaan mar dambe arrintan yayna dhicin hooyooyinka Soomaaliyeed yaan caqliga laydinka xaday wadankan qof wax ka qaadi karo wallahi ma jiro sharciga ayaa qof kasta qabta qof ka weyn wallahi ma jiro governorku dhaytan hadduu ku soo raaco oo aad dacwad leedahay wax uu ku qaban kara ma jiro xabad uu ku qaban karo uu ka caawin kara ma jiro iska ilaaliya wuxuushtooda ee kuwa hooyooyinka lacagta ka cunaya ee dhahaya anaa wax ku qabanaya ilmahoodii ma masruuftaan rikoorkooda fiiriya kulli xabsi bay wada galeen waa rag macruufa waa rag magaaladan jooga marba inaan hadda magacaabo laakiin waan magacaabi karaa sawiradoodan qaarkood soo galiyaa Facebook aniga may wax iga qaadaan
هذا شرعي wax kaga qaadaya waa beentood waa ka daabin hooyooyinka yaan la isku dirin war dadku markay isdilaan war iskula taga community-ga culimada iskula taga masaajidada isla taga laakiin ha ku cararina lawyer inaad $10,000 ku qabsataan ama $20,000 ku qabsataan si aad qof kale ugu dhibaataysaan ugu xidhaan xasamaynina war miyaa waalantii war lacagta dacwadan ku baxday yani waa waxaan ka murugooday yaa sa gaarsiiyay waa idin sheegay ay xun oo gudaafado oo kala keera ayaa wuxuu lacag ka soo qaatay hooyo ka mid dadkii dhib ku gaaray iyo ka soo qaatay markuu soo qaatay waxa uu ku yiri waxaan xirayaa kuwa ku gaarsiiyay iyo dad kale oo meeshaba ku jira ayaa xabsiga u dalacaya aakhirkii dacwadii wuxuu isaga halkaa kala gaarsiiyay isaga hooyooyinka Soomaaliyeed isku diray saaka waraaqii markaan arkay madaxayga ka weynaa arintan laga taxadaro hooyooyinka Soomaaliyeed nimankaan aan ii sheego bahalada shilinka idin ka soo qaataan waxay la tagaan baarar waxayna ku cunaan kiniin waxay ku iibsadaan kookiin waxay ku iibsadaan khamri lacagta uu adiga ka soo qaaday waxaas ku sameynaya waxna kuma qabanayo billaah alaykum ilaah baan idinku dhaarshay dadkii ay raaceen ee lacagta ka qaateeno ilaahay baan idinku dhaarshay markii aad maxkamadii timaadeen miya hadle no maysan hadle meel bay fariisteen ayna sharciga wana qaana waxaas ka taxadara nimankaas wuxuushta war fiiriye waxa dhacda laba qof baa isdilaya dacwaday soo kala goosanay dacwadihii macna badan ma laha sambil bay wada dageen haday doonaan mid kamida ayaa wuxuu imanaya dayuusinta mid kamida wuxuu oranaya qof kale waxa igu sameeyay oranay waraaqintu qaad hadada ana qaan judge hebel arinta haya ayaanu saaxiibna waxiraya maanta waxaad keenta $300 waxaad keenta $500 waa ka qaadanaya qof baa la xiraya qofkii la xiray waxa jirta lacag la yiraahdo bail out oo qofku soo bixi karo waa $200 ama waxa laga yaabaa dambiga qofka loo haysta ay marba ku xidhanta tay qofkaagi soo bail out kare wuxuu imanaya dayuuskan wuxuu oranaya waxna qaadna saldhiga ku xiran tahay ninka haysta waa saaxiib ana la shaqay $500 buu ka marsanaya $500 markuu ka marsado yani aqliga ka shaqaysiya wax uu qaban kara ma jirto waxa tusaale aan rabaa inaad u qaadataan arintan way dhacday wayna dhamaatay kiiskana waa soo dhamaatay lacag fara badan oo ku baxay hooyooyinka Soomaaliyeed haddaad isdishaan oo isqabataan heshiiya haddaad heshiin kara weydaan culimada iyo masaajidada iskula taga billaah alaykum oo ilaah baan idinku dhaarjiyay joojiya lacagtan faraha badan aad rabtaan inaad isku adeegsataan oo caruurtiina ka ooman yihiin oo ehelkiina ka gaajaysan yihiin sadaqa kula baxa war America nafadaad dishid lawyer-ka u tagtaa wuxuu ku oranayaa aniga barana ku soo saaraya keen markuu ka qaatan wuxuu ku oranayaa dhiib laakiin waxa ka sii daran dayuusintan aan sharciga lahayn ee kula Soomaali community baan matala ee dadka isku sii gubaya ee qaar labada dhinacba lacag bay ka kala cunay labada dhinacba lacag bay ka kala cunay joojiya hawshan joojiya labadii qof isqabta haday ka fursan weydo oo sharciga ay ka fursan iskula taga culimada iskulana taga masaajidada nimanka dayuusinta ee balwadu dilooto war Soomaalidu waxay ku maamaahan riya haday dub leeyihiin dabadooda ku qarsan lahaayeen ilaahay baan idinku dhaarshay nimanka aan sheegay dayuusinta qaada magacooda Google galiya magacooda first name-kii last name-kooda galiya mid walba waxa ku soo boodaysa oo khamri lagu qabtay oo gaar wada yaa ku soo booday markaas koronay community baan matala wax ay sameyn karaan ma jiraan lacag bay idinka qaateen maxkamadda yimaadeen ay now maysan hadlin kursi bay fariisteen waan imaan lahaa goobtaas laakiin waxaan u imaan waayay maalmaha dacwadu socotay waan ogaa waxaan diidayay in dhaxmada meesha ka socoto saaka waxaan arkay faylashi oo dhan nimankii lacagta idinka soo qaata hal mid oo kamid kuma qorayn dacwada faylashi lacag idinka soo qaata meel bistaa ugu dhageystay wixii xaakimka iyo juuriga lahaayeen iyo looyarada qola kasta looyaradoodii bruskudarkii baa hadlay isna waa taagnaa miyay hadleen lacagta soo qaateen waan ogaa maalin walba markay government imaanayeen iyo lacagta dumar ka qaadanayeen waan ogaa ruuxan ilaahay ka baqa nimankan jaahiliinta wasaqda oo record kale
oo falaniga haysta oo DUI ga haysta ee ku dhahay community man matala yaana isku kigisi diray lacagta aan looyrada ku qabsanaysaan sadaqa kula baxa war hadaa isqabataan war arab iyo labadii daaba isku dhow dadku waa isqabtaan dad islaamina hadaa isqabataan oo dawladdu idin xalin kari oo dawladdu ay arintii adkaato iskula taga culimada dhamaantii waxaan idinkaga tagayaa in aynu wanaaga aynu ka shaqeyno ma aha wadankan qof iska xiri kara iyo qof jeel geyn kara iyo qof dhahay ana kan qabanayo kan la kacaya ana kan sameeynayo kan la kacaya ana kan sameeynayo ana dawladdu u shaqeeyo ana wamana ana nina ana lawyer ana qalan ana lacag ma shaqayso wadankan sharci baa ka jira qof aan cadeyn lagu haynin lama qabsan karo ay dhalay oo $500 ka soo qaato kookin ku cunayno ku yiri qof baan ku soo xidhaynaa beentiis weey sharci ma laha green card ma laha passport ma laha I94 ma laha kalmadaha su'aaluhu dawladdu weydiiyeen rag aan sheegay newska soo istaagan qaarkood dadweynaha been ka sheegan community dayuusin doofaara weeyaan isku kindire hooyad kasta oo Soomaaliyeed oo arrini ay ku dhacdo la tasho culimada la tasho wax garadka haddii ay ka fursan weydo hadda masaajidada taga culimaynu leenahay dad community-gaynu leenahay dad sharaf leh baa jooga laakiin dayuusintooda ee daroogistayaasha yaana lacag idinka cunay waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh